السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي إلهي الممانت وحانو كهالي دونا النجاح مع الداد سيكو نقون كرتا قف قوليسته سيكو غاري كرتا هرمر محايه سببها كينا قفكو إنو قوليستو نلاشان الدنيا أكو قوليستو هدبا سببها كينا إنو قفكو قوليستو وأي فربديهين waxaan sheegi doonaa hadii ilaahay mo 5 sababood oo keeni kara qofku inuu guuleysto. sababta koowaad waxay tahay qofku inuu noqdo qof dadaal joogto ah la yimaada. waa inuu san qofku isdhiibin oo hadii caqabado iyo dhibaatooyin ay ka hor yimaadaan uusan noqon qof nolosha isdhiiba uusan noqonin. maama Britaniya ayaa waxay dhahdaa amaba ingiriisku ay ku mahmaahaan ayaa waxay tahay ha istaagin marka aad daashid, istaag marka aad dhamaysid. haddii aad hawl leedahay hawshaadii waxa weeye marka ay kuu gabagabowdo un faraha ka qaad. laakiin se adigoo aan hawshii aan dhamaynin aad lahayd ha istaagin, wad ilaa iyo waxa weeye inta aad kasoo gabagabaynaysid. waxay kale oo tahay sababta labaad oo qofka u horseedi karta inuu guuleysto qofku inuu yahay qof hadaf leh, qof ahdaaf leh. noloshan waa inaad ahdaaf mucayyana oo aad rabtid inaad xaqiijisid aad leedahay. waa inaad tahay qof xulmi iyo yididiilo iyo waxyaabo doonaya inuu xaqiijiyo. isla markaa waa inay kuu qoran yihiin waxyaabihii aad doonaysay inaad xaqiijisid. maxaad rabtaa inaad baratid? tusaalahan waxaan rabaa kale inaan barto luqadda ingiriiska, waxaan rabaa inaan barto kombiyuutarka culumtiisa wax ka mid ah, waxaan rabaa inaan barto inaan alifo kitaab, inaan alifo oo kale ayaan rabaa, inaan buug alifo oo kale ayaan rabaa. waa inay ahdaaftaadii ay kuu qoran yihiin. isla markaana waa inaad hadaf kasta oo ahdaaftaadii ka mid ah xilliga aad rabtid inaad xaqiijisid oo aad ku soo gabagabaysid waa in ay ku xadidan tahay. tusaalahan luqadda ingiriisiga amaba luqadda ingiriisiga oo kale ayaan rabaa inaan barto. waa in aan leeyahay muddo aan rabo in aan ku gaaro waxa weeye meel fiican aan kaga gaaro luqadda ingiriisiga. tusaale ahaan 2 sano oo kale, 1 sano oo kale, 6 bilood oo kale. waa inaan waqti xadidaa. lama dhamayn karo luqad lama dhamayn karo, laakiin si heer baa laga gaari karaa. waa in ay ii qoran tahay xilliga aan rabo inaan heerka ka gaaraa, waa inay ii qoran tahay. haddaba ahdaaftii kuu qornayd ee aad rabtid inaad xaqiijisid waxaa la rabaa sida ay u kala muhiimsan yihiin inaad u kala hormarisid. al-aham fal-aham. say u kala muhiimsan yihiin waa inaad u kala hormarisaa. haddaba sababta saddexaad ee uu qofku horumar ku gaari karaa waxay tahay hadda samee. waxba dib ha u dhigin. berri ayaan qaban doonaa, berri ayaan samayn doonaa, berri ayaan fali doonaa. waxaas oo dhan meel iska dhig. waxaa kaloo u baahan tahay majaalkii aad doonaysid inaad xaqiijisid in aad maalin walba wuxuun ka qabatid, maalin walba 1 cashar ka baratid, maalin walba 2 saacadood siisid, maalin walba 1 saacadood siisid, maalin walba nus saac siisid. hadba wixii kaa go'a ee waqtiga majaalka aad doonaysid inaad yoomiyan aad u siisid ayaa la rabaa. hana ka biqin in aad waxa weeye fashilantid. haddii aad fashilantid 1 mar, 2 mar, 3 mar, 4 mar waxa weeye ha quusanin. mahmaah ay ku mahmaahaan dadka u dhashay waddanka China ayaa waxay dhahdaa haddii aad dhacdid 7 jeer waxa weeye istaag marka 8aad. marar badan nolosha tan waad kufaysaa. waxaa la rabaa mar kasta oo aad kuftid inaad kacdid. qof aan kufin oo aan kicin
oo aan kufin oo aan kicin noloshan wax horumara kama sameeyo. waxaa kaloo u baahan tahay al-iimaan, waa in aad rumaysan tahay hadafkaagii iyo hiigsigaagii inaad ka run sheegi kartid, waa inaad rumaysan tahay. ninkii la odhan jiray Thomas Edison oo alifay amaba ikhtiraacay laambadda, waxa uu ku guul daraystay 1000 jeer amaba 99 waxa weeye 999 jeer ayuu isku dayay inuu ikhtiraco laambadda oo uu ku guul daraysanay. markii 1000 ay u buuxsantay ayaa waxa weeye uu ku guuleystay inuu ikhtiraco laambadda. waxaa la sheegaa nin dhalinyaro ah oo diray warqad shaqo ayuu wuxuu diray 2000 oo jeer ayuu diray codsi uu ku doonayo shaqo. 2000 oo jeer markii uu diray ayaa waxa weeye wax jawaaba ma uusan helin. haddana wuxuu sameeyey 2000 oo jeer oo kale ayaa uu diray. markii dambe ayaa shirkadihii uu dirsanayay codsiga ayaa qaadatay lana yaabtay ninkan iltizaamkiisa iyo in uusan quusanahaynin. waxaa kaloo walaalayaal loo baahan yahay qofku si uu hiigsigiisa iyo hadafkiisa uu u gaaro in uu noqdo qof sabra. adduunyadan waxa weeye wax kasta oo aad doonaysid inaad xaqiijisid waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo dhibaatooyin ayaa kaa hor imaanaya. waxaad arkaysaa dad badan oo hadafkaagii kaa niyad jabiya, waxaad arki doontaa dad badan oo ku caajsigeliya, waxaad arki doontaa dhibaatooyin iyo barobalayn badan oo kaaga furma jaanibkii aad baranaysid. caqabado badan ayaad la kulmaysaa. ha noqonin qof waxa weeye markay caqabadi ka hor timaado wixii iska daayo oo faraha ka qaada, ee waxaad u baahan tahay inaad sabirtid. maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa haddii la idmo sababaha uu qofku uu ku guuleysanayo oo uu noloshiisa uu ku guuleysanayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.